ku soo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsani mas'uuliyiin meel ay saxba ka abaabulin on ciidan u joogin oo dhuuso marhab la yiraahdo yaamahan hadal ka wadin walaha xoreeyayna ciidankan u hormarayna helin nabadoonna ku jiray nabadoon ciidankiisu u hormaraa waxa lagu qiimeeyay cilmi hagar saaxiibada halkan aynu ku saaxiibnayo waa ku mahadsantihiin haddii aad horay noola joogteen haddii aad nagu cusubtihiin subscribe dhaha si aad ula socotaan wararka iyo warbixinada halkan aynu soo gelino Som TV Soomaaliya xafiiskiisa magaalada Muqdisho qaybtan waxaynu ku eegaynaa ciidanka uga badnaa abid ayaa laga soo gootiyay degmada Daynile ee gobolka Banaadir iyadoo mudanayaal ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ay ka soo gootiyeen magaalada Muqdisho ciidankaas oo hubaysan gaadiidna wata ayaa waxay ku wajahan yihiin degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale Galhareeri mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee ka soo gootiyay degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaa ka mid ah Maxamed Abuukar Cali mudane ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka oo loo garan og yahay Jacfar xildhibaan Jacfar ayaa dardaaran u jeediyay ciidankaas ee hubaysan ee ku wajahan degmada Ceelbuur wuxuu sheegay in ciidan kale fara badan oo isla ciidanka xoogga dalka ay kaga horeeyaan gobolka Galgaduud ayana la doonayo inay ku biiraan ciidankaas wixii ka dambeeyana la doonayo in shabaab ay ka saaraan Galhareeri iyo sidoo kale Ceelbuur ee gobolka Galgaduud xildhibaan Maxamed Abuukar Cali Jacfar wuxuu u jeediyay dhalinyarada hubaysan ee ciidanka xoogga dalka qaybtooda in looga baahan yahay kaliya adeeg iyo sidoo kale sidii dadkooda iyo dalkoodaba shabaab ay uga xoreyn lahaayeen meelaha hadda ay haystaan shabaab horta dhalinyaro waa salaamantihiin insha Allah wax badanna waa socoteen waxaan malaa qaybo kamid inaad tagtaan furmaha dagaal ka socdo haddana inta la idinku soo daray adunkuba inaad qayb gashin la rabaa kulay ragga ficiina intay qabaan ay qabtiin way muhiimadu rag adinkoo kale ah halgan ku jira dagaalka wada annaguna wax kasto aan qaban karno waa in la garab taagana xildhibaanada haddii aan nahay dadku ciidamadii dawladana gooni isu abaabuleeno waa dhaqaaqeen beelihii deegaanadaas deegaanada waxa laga rabaa abaabul odayaashooda xildhibaanadooda saraakiishooda intooda wax gasha intaba iyo wasiir haddii leeyihiinba marka intaan waa abaabulkii ay baryahan wadeen xildhibaanada kullay qaybihii kalena abaabulkooda waa in ka daba imaan doonaa waxaa la idinkaga baahan yahay inaad halgankaas ka qayb gashin deegaanadiina aad wax ka xoraysiin ugu sawirtuna waayahan waa badatay intiinu ugu sawir naqata lama rabo ciidankii kale ee ragga kale waa idinka horreeyaan iyay gaadiidkoodiiba hal sanay joogaan meeshaas iyo weliba wax la jira rag waxaa ku jira fara badan inay soo laabtaan diiday rag badanna waa ku dhinteen haddana waa lagu dhimanaa waa lagu dhaawacmaa dagaalka astaamaha uu leeyahay lagu yaqaanaa dhimasho iyo dhaawac hadda dagaal maqashiin dagaal nabad inta la isaga tagaa nabad inta soo laabaha ma jiro leedii sheegi ma baan dhimashana waa dhaca laakiin alle cidda u qara dhima doonta xildhibaan Jacfar waa uu sii hadlay wuxuu ka hadlay dhinacyo in dhawaalaba ka hadlayay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo ka hadlayay Ceelbuur iyo Galhareeri wuxuu sheegay in hadal aan waxba taraynin cidii doonaysa inay wax u qabato bulshada shabaabka ay haystaan inay dhaqaaqaan wuxuu tusaale u soo qaatay Allaha u raxmade nabadoon cilmi hagar oo ka soo jeeday beesha oo ka dhashay gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte kaasoo ku dhintay dagaalkii shabaab ay iskaga saareen meelaha ay ka degan yihiin gobolka Hiiraan intaas waxaa looga daray ninka wuxuu yiri sagaar baxsada ay bartay odayaal iyo mas'uuliyiin meel ay saxba ka abaabulin on ciidan u joogin oo dhuuso marhab la yiraahdo yaamahan hadal ka wadin walaha xoreeyayna ciidankan u hormarayna helin nabadoonna ku jiray nabadoon ciidankiisu u hormaraa waxa lagu qiimeeyay cilmi hagar odayga xawaadle nabadoonka xawaadle wuxuu ballan qaaday inuu hor kacayo beeshiis waa hor kacay waa ku dhintay Allah u naxariistaan leena kuwa ka hadlaya guri islaamada dhaxo inta fadhiisto waa halgamayna waa dhimayna guri islaameed dhexdiisa dhimasho ma taale dhimashada ma ay taale qori inta soo qaataan ha tagaan
say wasiir iyo odaal kullee dhuusama rabaan inta fadhiistaan ay leeyihiin guddiyaan sameeyaynaa waxbaan qabahaynaa waxbaan dilaynaa igu sawir waa waxaas midda dhabta idinka rabaa nimankaas warka ay sheegayaan inay ka turjunteen idinka rabaa ayagu waxay sheegayaan ama been ha ahaato ama igu sawir ha ahaato ama wax xasan sheekh loo sheega ha ahaato xasan sheekhna waxaan ognahay run iyo beenba mid wax looga qaadaaho ma jirta shaqadaas in dhinac laga qabsaduu rabaa asiga dagaalka ka go'an marka odayaashaasu dadka ay ka dhasheen waxay joogaan dhuusamareeb ma joogaan qaybna waa la haystaa waxay joogtaa ceelbuur iyo galhareeri qaybna waxay joogtaa xamar qaybta la haysta xaggiiba joogtaa inta yimaadaan inta waxaa ka abaabulaano oo ragga hadiraano sida warbixinteeni horeba aad ku daawateen oo aan idiin baakinay in khilaaf xooggan uu ka taagan yahay qaabka loo wajahayo weerarka la doonayo in lagu qaado ceelbuur falanqaynteedana ay ka socoto dhuusamareeb ayaa xildhibaan jacfar wuxuu ifiyey in ismariwaagaas uu ka taagan yahay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgadood maxamed abuukar cali jacfar mudanaha ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka wuxuu kale uu ka hadlay ganacsatada deegaan ahaan ka soo jeeda ceelbuur in dhaqaalo fara badan ay haystaan hase yeeshee ee caqabad ay ku tahay shabaab wuxuu tilmaamay inaanu waxba looga baahnayn mar haddii ay cudurdaar ay la yimaadeen wuxuu sheegay xildhibaanku in iyaga oo xildhibaano ah oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ay wax walba diyaar ula yihiin ciidanka la doonayo in weerar ay ku qaadaan ceelbuur iyo nawaaxigeeda wasiirro iyo ganacsato iyo cid walba oo hadal uun meel la taagan aanu waxba laga doonaynin ganacsatadii iyo odayaashii iyo wixii la rabay inay shaqadan qabtaan oo dhan ganacsatada ilba xoolaa laga rabay ayagana waxay dhan shabaab aan arkaa kii la yidhaha war ciidanka iyo waxbaa jiraan kaalaya gacantooda iyo jaabkooda inta ka dhexaysa shabaabaa jooga oo arkaa sabab ay wax ku diidaan ay haystaan laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa dhallinyaradiinna inaanan waxba uga baahana ganacsi mid ah mid odaya mid wasiira mid igu sawir ah wax alla waxaad u baahan tihiin oo saadkiinna iyo shidaalkiinna annagaa ballan qaadayna xildhibaanada ah ha ka welwelina adinkana shaqada laydinka raba waxaa waaye dagaalkan inaad geshiin kuna dhimatiin kuna dhaawacantiin dalkana xoraysiin intaas masla qabnaa dhinaca kale wasiir khadiijo maxamed diiriye sidoo kalena ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ayaa iyana waxay ka hadashay iyadoo ku hadlaysay afka haweenweynaha soomaaliyeed in dhinacoodu ay diyaar u yihiin taakulaynta iyo garab istaagga ciidanka xoogga dalka ee furmaha dagaalka ku sugan khadiijo maxamed diiriye oo diyaarinaysay cuntooyin kala duwan oo looguna talagalay ciidanka ayaa waxay sheegtay in dhinacooda ay diyaar u yihiin la dagaalanka shabaab guud ahaan hogaamiyaasha haweenka gaar ahaan gobolka banaadir magaalada muqdisho caasimadda dalka oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf madaale ay ugu horeyso guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir mudan jawaahir baarqab dhammaan xukuumadda dan qaran waxaa dalka heegan ugu jiraa wejiga labaad ee dagaalka uu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb caasimadda dowladda galmudug hambalyaan leeyahay madaxweyne qorqor iyo dhammaan reer galmudug 14kii Agoosto waxaana diyaar garow ugu jiraan dhammaan hogaamiyaasha haweenka oo gobolka banaadir iyo wasaarad iyo gabar kasta diyaar u nahay inaan garab istaagno geesiyaasheena soo majeestayaasha ciidamadeena oo leenahay garabkiinaan soconay geeshka iyagoo guuleysta waxaa taa noo dheer firxadka dhuumaalaysigooda alla say u carareen subxaanaka yaa cadiim aawi ciyaalkii naarta jannaday dadku ugu baaqayeen orod xumaa firxadka na inaysan nagu soo hoos dhuumanin oo goranwaaga guryaha laga soo saarayaa noo dheer marka haddaan nahay hogaamiyaasha haweenka haddaan nahay
gobolka banaadir haddaan nahay xukuumadda dan qaran haddaan nahay wasaaradda haween maantoo kalena indhahaana furan indhahaana furan wabilaahi tawfiiq jawaanaa risaysan kuwa kala gudaha kusii jira maalmaha looma kala kicin mar haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu horkacayo fadhiyana dhuusamareeb iyo guud ahaan galmudug ilaa iyo hirshabeelle dhammaystirka ilaa iyo koonfur galbeed ilaa iyo jubbaland dhammaanteen haweenka soomaaliyeed waa u taagannahay habeen iyo maalin gabar kasta meeshay joogtay sahayda ka wadaa ciidanka annagana sitibaankan oo dhan guddoomiye jawaahir khayr allah ku siiyo hoggaanka gobolka banaadir ee haweenka waana kaasaa waad sii ordaysaan halkaana nooguma imaanaysaan saas ogaada sagootintan la sagootiyey ciidankaas ee dowladda federaalka ee ku wajahan degmada ceelbuur ee gobolka galgadood iyo hadalkan uu jeediyey xildhibaan jacfar kana hadlay dhuusamareeb iyo hadalladii laga jeediyey ayaa ku soo beegmaya iyadoo tabaabushaysi xooggan oo dhinacyo kala duwana uu ku wajahan yahay degmada ceelbuur iyo deegaanada kale ee shabaabka ay ku sugan yihiin waa ku mahadsantihiin daawashada warkayaga som t v soomaaliya xafiiskiisa magaalada muqdisho warkan warka xigeenta aynu ku wada kulmayno fii amaanillaah